maalin wanaagsan Ramadaan Kariim daawadayaasha qiimaha leh ku soo dhawaada barnaamijka maanta ciyaaraha maxaa ka cusub hadaa tahay saaxiib naga cusub fadlan channelkayga subscribe dheh like share comment kama marna aynu ku bilaabay Lazio ayaa miisaanaysa inay u dhaaqdo weeryahanka kooxda Rangers waa Linus Hagi sida laga soo xigtay Corriere dello Sport weeryahanka waa wakiilka halyeyga reer Romania ee George Hagi ayaa waxdara ka dhigay waqtigiisa uu ka ciyaarayay kooxda Glasgow intuu ama uga ciyaaray kooxda reer Belgium ee Genk laacibka laftiisa wuxuu muujiyay sida uu u jecel yahay macalinka Steven Gerrard laakiin wuxuu cadeeyay in mustaqbalkiisa gabi ahaanba gacanta uu ku jiro wakiilada maadaama uu doonayo inuu xagaaga soo saaro dhamaystirka Allah haatan socda Manchester City ayaa isku diyaarinaysa inay dalab 30 milyan oo euro ah ka gudbiso xagaagan daafaca Marseille Bakara Kamara sida laga soo xigtay Teleton Sport Arsenal iyo Manchester United ayaa sidoo kale isha la raacaya 20 sano jirkan kaasoo wali 2 sano u harsan tahay qandaraaskiisa haatan ee Orange Valverde Kamara ayaa 28 kulan u saftay tartamada oo dhan kooxdiisa Marseille xilli ciyaareedkan isagoo u dhaliyay 2 gool xidiga qadka dhexe kooxda Bayern Munich Angelo Steller diirada u saaran kooxda Arsenal sida laga soo xigtay jasiirada Belle Gunners ayaa la xiriirtay kooxda haysata horyaalka Bundesliga si ay uga hadlaan 19 sano jirkan helitaanka ka hor suuqa kala iibsiga xagaagan Steller ayaa wali u harsan hal sano oo ka sii joogo qandaraaskiisa haatan iyo Allianz Arena laakiin Bayern ayaa laga yaabaa inay xayiraad ka dhigto baxitaanka hore iyadoo ay ku jirto ikhtiyaar dib u heshiisyada kasta oo macquul ah Cesc Fabregas oo hadda ka ciyaaraha Faransiiska ayaa shaaca ka qaaday in saaxiibkiisa hore ee kooxda Barcelona Neymar Jr uu qalmay inuu loo aqoonsado inuu la mid yahay halyeyga kooxda Barcelona ee Ronaldinho xidiga garabka kaga ciyaari jiray kooxda Barcelona waqti qurux badan ku soo qaatay intii lagu guda jiray 4 sano oo joogay garoonka Camp Nou isagoo dhaliyay 105 gool 186 kulan oo saftay isagoo kooxda ka caawiyay inuu ku guuleystaan 8 koob oo ku jira UEFA Champions League sanadkii 2015 Neymar ayaa ka tagay Barcelona kuna biiray kooxda Paris Saint-Germain heshiis rikoor 17 laakiin waxa marar badan la xiriirinay inuu ku laabanayo dalka Spain tan iyo markaasi Fabregas ayaa soo jeediyay inuu haysto xidig walba uu u baahan yahay inuu noqdo kan ugu fiican Neymar waa soo saare wax soo saar leh waxa uu leeyahay tayo heer ah Ronaldinho waa xidiga saro isbedel sameeya marka uu doonayo waqti ilaa markii aan la ciyaariyay isaga uu dhawaan noo diilay 2 kulan oo la dheelnay Paris Saint-Germain ayuu Fabregas u sheegay jasiirada Marca ay ka soo baxdo dalka Spain Lionel Messi iyo Luis Alberto Suarez iyo inta soo hartaba waxay jeclaayeen in koobka ay haystaan oo ay isku koox ahaadaan waxa yeelay daqiiqad kasta wuxuu siin karaa caawinaad ama goysmo waxa ku adag ciyaarinta kubadda cagta wuxuu leeyahay wax walba uu ku fiican yahay marka garoonka lagu jiro waa cunug aad u wanaagsan waa sida ilmo yar oo kale mar walba uu faraxsan yahay oo nolosha ayuu raaxaystaa Neymar ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu dhimo mushaarkiisa 50% si uu dib ugu laabto xagaagan kooxdiisii hore Barcelona kooxda kubadda cagta ee Milan ayaa indhaha ku haysa inay keensato Luka Jovic oo kamid ah Real Madrid iyo Dani Ceballos oo ka socda Red Bull Salzburg laakiin waxa rabaan ogolaanshaha Real Salzburg sida laga soo xigtay Tutto Sport ee ka soo baxda dalka Talyaaniga Renig wali ma uusan saxiixin heshiis uu ku bedelayo macalinka xiga ee Rossoneri laakiin kooxda ayaa ku rajo weyn inay heshiis la gaari doonto labada ciyaaryahan ka hor balanta rasmiga ah kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa ku dhawaaqday in mas'uul kale kooxdeeda uu ku geeriyooday caabuqa coronavirus kadib muddo oo la xanuunsanayay isbitaal ku yaala dalka Spain madaxweyne ku-xigeenkii hore Real Madrid Suarez ayaa u geeriyooday xanuunka coronavirus iyadoo u jiray 76 sano Amador Suarez kaasoo Real Madrid madaxweyne ku-xigeen ka soo noqday waqtigii Roman Calderon oo madaxweyne ka ahaa intii u dhaxaysay 2006 ilaa 2009 ayaa u geeriyooday kadib 40 cisho oo ku xanuunsanayay coronavirus wuxuu xubin ka ahaa Real Madrid ilaa sanadkii 1964 wuxuu lahaa kaarka lambarkiisu yahay
10.319 wuxuu ku dhashay Holevia 12 bishii February sanadkii 1944 inkastoo hadda ku noolaa San Sebastian halkaas uu ku dhintay kadib 40 maalmood oo ku jiray isbitaal ku yaala dalka Spain. Suarez waxyaabaha lagu xasuusto waxaa kamid ah inuu ku guuleystay abaalmarinta hal-abuurka ganacsiga sanadka ee Holevia Federation of Businessmen taasoo helay sanadkii 2003 kadib markuu shirkadiisa kalluumaysi uu wax soo saarkeeda gaarsiiyay adduun dhan. gabadha la yiraahdo Christian Garmedia taasoo lahayd wasiirka sayniska iyo curinta Spain. kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa Nicolas Otamendi isticmaalaysa heshiis ay ku doonayso inay kula soo wareegto daafaca River Plate ee Lucas Martinez. daafaca Manchester City ee Nicolas Otamendi ayaa lagu soo waramayaa inuu u furan yahay inuu mustaqbalka matalo kooxda River Plate inkastoo Otamendi uu saftay 31 kulan tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan hore ayaa loo soo jeediyay in mustaqbalka daafaca dhexe uu mugdi ku jiro oo uu tagi doono garoonka Etihad. maalmihii la soo dhaafay TNT waxay sheegtay in Manchester City ka fiirsanaysa inay u dhaaqdo Lucas Martinez Quarta kaasoo la sheegay inuu ku soo jiitay tababara Pep Guardiola iyadoo ay soo baxayeen warar sheegaya in Otamendi loo soo bandhigi karo in heshiiska ka qayb laga dhigo ayaa haddana waxaa la sheegaya in 32 sano jirkan uu taageero weyn u yahay kooxda reer Argentina. daafaca dhexe ayaa matalin kooxda wadankiisa ka dhisan tan iyo markii uu ka tagay naadigiisa Vélez uu ku soo biiray Porto sanadkii 2010. Otamendi ayaa weli gacanta ku haystay heshiis 2 sanadood ah ee kaga harsan qandaraaska uu ku joogo garoonka Etihad Stadium ee ku dhashay kooxda Manchester City. kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa lagu soo waranayaa inay u furan tahay saxiixa xidiga qadka dhexe kooxda Juventus Aaron Ramsey iyadoo ka qayb dhigi karaysa heshiiska ciyaaryahan Paul Pogba iyadoo kaliya hal sano uga harsan tahay qandaraaska Pogba waxaa la ogolaan karaa inuu kaga tago garoonka Old Trafford inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga soo socda 4 sano kadib markuu yimid kooxda Juventus. kooxda reer Talyaani ayaa muddo dheer la xiriirinayay inay dib u midoobi doonaan xidiga ku guuleystay koobka adduunka sanadkii 2018 iyadoo la siinayo inay gaarayaan mas'uulka waa tanaasul dhanka dhaqaalaha ah sida laga soo xigtay Calcio Mercato. taasi waxay ka dhigaysaa in Aaron Ramsey loo isticmaalo culays dhanka heshiiska kadib Ole isku dhafan ee ku qaatay Torino inkastoo dhaawacyada ay doorkooda qaateen. 29 sano jirkan ayaa waxa kaliya 12 kulan ku soo bilowday kooxdiisa sidoo kale waxa uu bedel ku soo galay 9 kulan xilli kooxdiisa Juventus ay sanadkii la soo dhaafay ku guuleystay horyaalka Serie A dalka Talyaaniga. marka laga yimaado saameynta dhaqaale ee coronavirus Manchester United ayaa sidoo kale rajayn doonta inay lacag ka hesho Juventus haddii ay ogolaadaan Paul Pogba in uu mar labaad ku laabto dalka Talyaaniga sidoo ugu biiri lahaa kooxda Juventus. si kastaba ha ahaatee xidiga ku guuleystay koobka adduunka sanadkii 2018 ayaa kooxda Manchester United u saftay 99 kulan isagoo kalena u dhaliyay 24 gool tan iyo markuu ku soo biiray garoonka Old Trafford ee ku dhashay kooxda Manchester United. wararka ayaa sheegaya in kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay soo gashay tartanka lagu jiro daayarka naadiga Marseille Paul Camara kaasoo hore u soo xiiseynayeen kooxaha Manchester United. 20 sano jirkan ayaa 24 kulan ku soo bilowday safka hore kulamada horyaalka Ligue 1 xilli ciyaareedkan. saameynta dhaqaale coronavirus iyadana horseed karta in Marseille ay diyaar u ahaato dhageysiga dalabyada u imaanaya ee ku aadan saxiixa laacibkani sida ay warinayso jasiiradda Little Sport. Manchester City ayaa daayarka reer France ee u aqoonsatay mid macquul u ah soo kordhinta safkeeda kooxda. Camara wuxuu awood u leeyahay inuu ciyaaro daafaca dhexe iyo qadka dhexe oo burburinta taasoo laga yaabo inay Skyblue ka dhigto bedelka saxda ee Fernandinho. si kastaba ha noqotay Manchester United iyo Chelsea ayaa sidoo kale la sheegaya inay isha ku hayaan xaaladda xidigan ka hor suuqa kala iibsiga xagaagani. kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa heshiis 5 sanadood la gaadhay xidiga garabka uga ciyaara kooxda Manchester City Leroy Sané taasi heshiiskiisa Etihad Stadium ku eegayay hal sano kaliya. Sané oo garoomada lagu aragtan iyo markii horaantii xilli ciyaareedka markuu dhaawac culus gaaray ayaa dib uga soo laabtay tababarka kor intuu xanuunka coronavirus albaabada u laamin garoomada kubadda cagta wuxuuna saftay kulan ay daayarto kooxda lahayd oo ku muujiyay inuu u diyaarsan yahay inuu si buuxda uga soo laabto garoomada kubadda cagta sida ay qoray wargeysa caanka ee ka soo
baxa wadanka Jarmalka ee loo soo gaabiyo PLD Bayern Munich waxay ku guuleystay saxiixa laacibkan oo xagaagii hore si weyn loo xiriirinayay waxayna si weyn si mabdi'iyan u ogolaadeen inuu saxiixo heshiis 5 sanadood ah kadib markii heshiisku dhacay Bayern Munich waxay xiriir la sameysay Manchester City oo uga soo bandhigtay lacag aduun gaaraya 35 milyan oo kani oo xitaa ay ka hoosisay lacagtii ay markii hore kaga soo qaateen kooxda waa kooxda reer England ee ku soo iibsatay 24 sano jirkani City ayaa sanadkii 2016 Leroy Sané kaga soo iibsatay kooxda Schalke 04 ee ka siisan dalka Jarmalka lacag dham 46 milyan oo gani waxayna galaysaa kooxda City qasaare weyn haddii ay ogolaato dalab 35 milyan oo ah inay Munich ay soo bandhigto oo 12 milyan oo ka hooseysa qiimaha ka soo iibsatay kooxda Schalke 04 kooxda reer England ayaa la sheegay inay doonayso in laacibkeeda ay ku iibsan lacag aan ka yareyn 88 milyan laakiin wargeyska ma sheegin sida ay suurtagal u noqonayso Munich inay ogolaysiiso Pep Guardiola iyo kooxdiisa inay qaataan lacag ka yar xitaa haddii ka hooseysa midii hore ugu soo iibsadeen kooxda Schalke 04 ee ka dhisan dalka Jarmalka